hay-adda Mission to Heal oo kaashanaysa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa qaliino iyo daaweyn ka fulin doonta deegaanada fogfog ee Somaliland. Qaliinadaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan bulshada miyiga fog ku nool, iyadoo hay-addani ay ka soo shaqeysay wadamada qaaradda Afrika qaarkood kuwaasi oo ay Somaliland u xulatay inay qayb ka noqoto. Munaasabadda barnaamijkan lagu furayay oo lagu qabtay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka, mas'uuliyiinta isbitaalka iyo madaxda hay-addaasi. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Abdullahi Taiwan iyo Dr. Isaan Aadan oo ka warramay ahmiyadda ay leedahay hawlgalkan caafimaad. hore way noogu iman jirtay laakiin waa markii ugu horeysay ee qalab inta la eg ay la soo gasho. sharaf weyn bay noo tahay. waxaan anigu leeyahay Somaliland aynu ku wadno wanaagaas, aynu ku wadno nidaamkaas, aynu ku wadno horumarka iyo nabadgelyada iyo quruxdaas ayaa soo dhaweysa saaxiibadan iyo saaxiibo kale badan. waxa isaguna halkaasi ka hadlay Dr. Gaylan oo ka socday hay'addaasi waxa uu mahadnaqay xukuumadda Somaliland. aad baan ugu faraxsanahay dadka reer Somaliland iyo waliba hogaankooda sidana loo soo dhaweeyay ee waliba socdaalkayga laga dhigay mid ay ku raaxaystaan kooxda oo dhani. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Maxamed Cabdi Geexergeeye ayaa soo dhaweeyay hay'adda Mission to Heal. sharaf weyn ayay maanta noo tahay guud ahaan qaranka Somaliland, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadkaba maanta inaynu soo dhaweyno oo aynu halkan ku daahfurno missionkan oo ah mission loogu talagalay wadamo badan oo Afrikaan ah, laakiin aynu nasiib u helay Somaliland inay noqoto meeshii ugu horeeyay ee uu ka fulo missionkani. ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa ka hadlay hawlgalkan iyo ahmiyadda uu leeyahay shacbiga. waxaynu Hargeysa Group Hospital ku daafuraynaa mission aad u ballaaran oo ah hawlgal caafimaad oo ay hay'ad khayri dalkeena ugu timi. hay'adaas oo uu maanta inala joogo asaasiheeda ama founderkeeda Dr. Gaylan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, waan soo dhaweynaynaa. arrimaha hay'adani ay dunida ka qabato inaga inala mida saddex arrin oo waaweyn baa ugu waaweyn. saddexdii mid ka mid ah bay halkan maanta ii joogtaa. ta koobaad waxa weeye kow in dadka xanuunsanaya ee dunida korkeeda ku nool ee laga yaabo inay gaari waayeen goobihii caafimaad ee ay adeegyo caafimaad ka heli lahaayeen inay adeegyo caafimaad oo soconaya inay halkiisa ugu geeyaan, sida maanta halkan ay noola joogaan. Dr. Gaylan iyo tiimkiisa waxa kale dunida ka caawiyaan in shaqaalaha caafimaadka ee localka marba wadanka ay tagaan inay tababaro u fidiyaan. qodobka saddexaad ay aad iyo aad uga caawiyaan waxa weeyaan inay equipment iyo qalabka caafimaad loo baahan yahay marba deegaanada dunida kamid ah ee tagaan inay ka caawiyaan. Cabdikariim Saciid Saalax, Telefishinka Cable, Hargeysa.